sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in shuruucda u taala Shiina wadanka uu degan yahay laba xaas laba cunug ma ku kala dhali karto magacaagana ma wada qaadan karaan sababtaas ayaa keentay Shiina inuu la aado Dooxa ay ku soo dhasho labada barnaamij oo isla kulmaa waxay tahay Manaal oo Carab ah jecleed cunugeeda ugu horeeya inuu ku dhasho Carbaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Ku soo dhawaada xaqiiqside war degdeg ah Manaal Beeldaaje oo ku dhex dhashay garoonka caalamiga ah ee Marxaba Stadium ee magaalada Dooxa. Shiine iyo Manaal ayaa waxay daawasho u aadeen koobka adduunka. Manaal oo ay ka dhiman tahay dhalmadeeda sida naloo xaqiijiyay 1 week ayuu Shiina culay wuxuu u waday magaalada Dooxa ee wadankaasi Qatar si ay World Cup iskula soo daawadaan. Manaal ayaa muddo xiiseenaysay in ay mataqaanaa si toos ah u daawato ciyaaraha ciyaarta Jarmalka iyo Spain ayaa mataqaanaa waqtigii garoonka la soo wada galay ayaa gabadhii fool qabatay garoonkiina waa lagu kala cararay si degdeg ah ayaa isbitaal loogu qaaday. Manaal iyo Shiina culay ayaa last 3 days kala soo dhaafay waxay ku damaashaadayeen Dooxo. Shiine ayaa wuxuu ula qaxay Manaal si ay ugu soo dhasho Carbaha maadaama ayada asalkeedu ay tahay Carab. Manaal ayaa waxa la leeyahay waxay weligeed ku riyo jirtay cunugeeda ugu horeeya inuu ku dhasho Carbaha maadaama abtiyaasheed Soomaali yihiin aabaheedna uu yahay Carab. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in isbitaalka loola cararay oo mataqaanaa hadda saalada ay saaran tahay. wixii ka soo kordha waan wada eegi doonaa Allah u fudeeyo ayaanu leenahay. barnaamijkan waa breaking news waa war hadda ka soo dhacay magaalada Dooxa. Manaal Beeldaaje iyo Shiina culay ayaa labada sano ugu dambeeyay la isku xamanayay lamaana inay yihiin la sheegay laakiin caawa ayay soo shaac baxday inay uur leedahay 9 biloodna ay dhameysatay. waxaan leenahay ma sha Allah sidoo kale wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in shuruucda u taala Shiina wadanka uu degan yahay laba xaas laba cunug ma ku kala dhali karto magacaagana ma wada qaadan karaan sababtaas ayaa keentay Shiina inuu la aado Dooxa ay ku soo dhasho labada barnaamij oo isla kulmaa waxay tahay Manaal oo Carab ah jecleed cunugeeda ugu horeeya inuu ku dhasho Carbaha iyo Shiine oo wadanka uu degan yahay naago ilmo ugu dhasho horay aan mar labaadna mataqaanaa ii sheeg maxaa la yiraahdaa kale ilmo ugu dhali karin asoo aan maxkamad furiin ah waraaqad ka soo qaaday. marka sidaas ayaa sababaysa la leeyahay laakiin anagu waxaanu leenahay barakoobaanu leenahay war channelka subscribe ka saarto oo la gareeyo Shiina share gareeyo muuqaalka intaan muuqaalka xukun doon waxaan kaga tageynaa